ميكروفون كهذا oo ah mid aan la mid ahayn goobaha laga hadlo goob ka duwan goob guuleed goob difaac goob dulmidiid goob geesiyaal ku urursan yihiin gabdho iyo wiilalba odayaal rag iyo dumarba goob adduunka oo dhan aqoonsan yahay inuu galabta kelmad ka jeediyo ayaan ku soo dhaweeyay ku soo dhawow mudane madaxweyne moodaa maanta inay tahay maalin taariikheed maalin ka duwan maalmihii kulameed maalin aan la qadari karin qiimaha ay ummadatan ugu fadhido waa maalin xaqiiqadii aan loo heli karin eray lagu cabbiro waayo qiimaha qofka la qiimeeyo hadba waa darajo waxaad moodaa bermuuda qiimo adduunyo wax lagu qiimeeyo ee maanta la dhihi karo qiimahoodu waa intaa inayna afkayga ka imaan karin waxaan ka aaminsanahay cid kasta ee nabadoona cid kasta ee sharafdoona cid kasta ee wanaagdoona waxay marag ka tahay in badbaadinta la badbaadiyey ummaddatan tiirbireedkii badbaadiyey inay yihiin bermuuda ayaan cidna ayna inkiri karin waxaan hubaa oo xaqiiqo ah ilaahay rabitaankiisa iyo xukunkiisa iyo dadaalka ay muujiyeen bermuuda dadaalkaasoo ahay mid aan qabiil ku dhisnayn mid aan koox ku dhisnayn balse ahay dad u dagaalamaya qadiyaddooda daafacayay nafsadooda xoolahooda iyo dadkooda daafacayay ku dagaalamayay diintu waxay u fasaxday ku dagaalamayay ka hor jeeday wax allaala waxa diintu ay diideen ku dagaalamayay inay ahaayeen oo haddayna iyagu go'aankaa midaysan ama dadaalka ay muujiyeen ayna muuji lahayn ay khatar geli lahayd jiritaanka aan maanta jirno ee qalqiilo geli lahayd ayaa xaqiiqo ah waxaan rabaa inaan u soo jeediyo mahadnaq dhammaan hoggaamiyaasha bermuudo waxaan rabaa inaan u soo jeediyo mahadnaq ciidamada qalabka siday waxaan rabaa inaan u soo jeediyo mahadnaq haweenka qoragana sitay sida gaarka ahayna u taakulaynayay ciidamada waxaan rabaa mahadcelin inaan u soo jeediyo dhammaan dadka ku nool bermuuda oo si muslimnimo ah si walaaltinimo ah si qiimo iyo qiiro badan gacmaha isu qabsaday daafacayna ummaddooda waxaan ilaahay ka baryaynaa intii ku dhimatay dagaalkaa xaqa ahaa in ilaahay jannatulfardoos ka waraabiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwii ku dhaawacmay ee dhaawaca in ilaahay barmadoobaatay dhaawacooda uga dhigo waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwa nool ee daafaca ku jira in ilaahay u fududeeyo daafacooda kuna guulaystaan wax allaala waxa ay haminayaan oo ah midnimo Soomaaliyeed iyo ummadatan oo sharaf ku noolaata waxaan ilaahay ka baryayaa in ummadda Soomaaliyeed qalbigooda isu soo dumo waxaan ilaahay ka baryayaa nabad waarta in ummadda Soomaaliyeed uu ku manaysto waxaan ilaahay ka baryayaa barwaaqo maguurtaana inuu ummadda Soomaaliyeed siiyo waayo waxaad ogtihiin haddaan nabadu jirin wax nolol la yidhaa ma jiri karto waddankaynu wuxuu dhibaato ku jiray muddo 2 sano waxaan ku jirnay 2 sano oo dagaal sokeeye ayaan ku jirnay waana aragnay maanta faa'iidada uu leeyahay dagaal sokeeye wax faa'iida uu leeyahay ma jiro haddii ay jirtay cid ku fikiraysay in uu ku qabsan karo waddan xoog
ama qora caaradiis oo xukun kula wareegi karo waa la beeneeyey oo ciidanka hortayda taagan ayaa beeneeyey inayna taas waxaan ku dhawaaqnay oo aan soo jeedinay muddo fara badan in la joojiyo dagaalka lagala joojiyo ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda haddii ay dhibaato la kala tirsanaayo ay jiraanna la iskugu yimaado miis korkeed lagana wada hadlo wixii dhibaato jiro laguna xalliyo wada hadal iyo si walaaltinimo waayo taas ayaa ummadda talbano ah taas ayaa lagu gaari karaa danaha aan leenahay iyo meesha aan u soconno waa midda kaliya oo lagu gaari karo waxaan rajaynayaa mar haddii la ogaaday in qora caaradiis aan wax lagu gaari karin in caqligu taliyo ummaddu isu soo naqato walaalnimadii shalay la ahaa loo soo naqdo soomaalinimadii shalay la ahaa loo soo naqdo qarinnimadii duduntay dib loo dhiso lanana walaaloobo waxa colaadana meel la iska dhigo taas ayaan ku heli karnaa sharaftii dhuntay ayaa dib loogu soo celi karaa waad ogtihiin qarannimo iyo dawladnimo waxay ku imaan kartaa oo kaliya ummadda Soomaaliyeed oo gacanaha isqabsata reer hebel iyo reer hebel qaran ma lagu noqon karo ciddii isku dayda inay ku noqotana waa mid ay ku dhumayso oo ayna suurtageli doonin ma suurtoobayso qabiil in wax lagu noqdo waxa wax lagu noqon karaa waa qaran oo kaliya waxaan rabaa inaan idiin sheego oo aad ka warqabtiin biriyaha kan in uu jiray wada hadal labadii dhinac ee walaalaha ahaa ee ishaystay in wada hadal uu biriyaha ka socdo waxa lagu wada hadal badan kadib waxa lagu heshiiyey oo leesla gartay in colaad wixii colaad ahaa la dhigo lana walaaleeyo lana nabadeeyo magaalada ummadii kala tagtana dib la isku soo celiyo waxa lagu heshiiyey in magaalada la isu furo in ganacsigii dib loo abuuro in guryihii lagu kala jiray dib loogu celiyo cid walba guriga ay lahayd haddii mar haddaan go'aansanay nabad mar haddii ay naqatay ama aragtadu ay naqatay inay lagama maarmaan tahay in nabad lagu soo celiyo ummadda dhexdeeda waxaa waajiba in shalay geesinimadii aad u go'aansateen geesinimadii aad shalay u go'aansateen inaad daafacdaan guryihiinna iyo dadkiinna aad u daafacdeen waxaan idinka rabaa oon idin weyddiisanayaa inaad nabaddana sidaa u xambaarataan oo aad nabad ku soo celisaan magaaladiina waxaa laydinka rabaa inaad dariiqyada furtaan leesuna furo gaadiidka leesna dhex maro sidii heshiisku uu ahaa labada dhinacba loogu heshiiyey taas ayaa waxay u tahay dan ummaddayna taas ayaa dan noo annaka waxaan rajaynaynaa sida aan halka uga wada hadlayno oo aan isu farayno nabadda in meesha kalena sidoo kale ay nabadda isu farto sidaa ay halka uga hirgelaysana ay dhinacyada kalena uga hirgasho ayaan ilaahay ka baryaynaa ma rabo inaan erayo badan ka idhaaho halka waayo sida runtaa maanta waa maalin aanna dhihi karin wixii aan cabbiri lahay aanna cabbari karin shucuurtayda oo si kale ah darteed waxaanse idin leeyahay guulaysta waxaan idin leeyahay guulaysta waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin leeyahay guul ku waara weligii sumcadeeni baabaday silaaxiyo dhibaato sumcadeeni baabaday sanayaal barwaaqa ahoo looga soo siraad karo sanayaal barwaaqa ahoo looga soo siraad karo annagoo seeto kala dhigan saatirow baryaynahay annagoo seeto kala dhigan saatirow baryaynahay Allah
سمنو باقي الله نو صبرو سمنو باقي Somali da damante isu samahu sidaan doonano yeel isu samahu sidaan doonano yeel الله نو صبرو سمنو باقي الله نو صبرو سمنو باقي Somali da damante isu samahu sidaan doonano yeel ciidankan waa ciidankii barmuuda بخور ألو نجا بدبالي بخور ألو نجا بدبالي نبدبالي يا ربي بخور ألو نجا بدبالي بخور ألو نجا بدبالي نبدبالي يا ربي نبدبالي يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بصبح احنا قبح بلا ينادى رافضنا بصبح